Dugsiga hoose Dhexe Haragwaafi ee magaalada Oodweyne ayaa maanta lagu qabtay munaasabad dib loogu furayay sanad dugsiyeedka 2018 ilaa 2019 munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen guddoonka waxbarashada waalidiinta iyo waliba maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha dugsigaasi hoose Dhexe Haragwaafi Cabdi Axmed Ciise. dugsiga hoose Dhexe Haragwaafi ardayda kaalinta koowaad galaas walba u galay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waa 7 fasal eedka marka laga reebo fasalka 8 isaga imtixaankiisii heer qaran baa laga sugayaa dawladda ku dhawaaqaysa dhawaan hadii Ilaahay ka dhigo iyadinu ka sugayna laakiin waa 7 ilaa koowaad 7 fasal maanta halka waxaan sugnimi 7 fasal oo mid uu laba yahay fasalka koowaad baa laba u kala baxa A iyo B marka waa 8 fasal koowaad oo laba ah iyo ilaa 7 waa 8 ardayda la doonayna kaalmaha jaysadaha qaata waxa weeye waa 24 arday waalidiin iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose Dhexe Haragwaafi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen ardayda yaryar oo hortooda ka soo jeeda oo ay ka muuqato nadalka wanaagsan iyo nayaayirka wanaagsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay hablihii oo imika nagaga horeeyay xagii waxbarashada madaxweynaha ka qayb galay ee ka soo baxay dugsigan maxamed xaaji ibraahim cigaal Allah ha u naxariisto cabdiraxmaan axmed cali Allah ha u naxariisto inta wasiir iyo xogeeyo guud iyo tala adduunka soo baxday taariikhda Soomaaliya iyo Soomaaliland way ku taala waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada waxbarashada waalidiinta chance qolo aan ka helaa waxa weeyaan maalintan oo kale aan sunnimeenan day wax u sheegno inaynu ka wada socono ardaygu hadii labada dhinac aan la isaga celinin deeman noqonayo waxba gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareed Axmed Cismaan Maxamed oo ugu dambeyntii hadalka soo xiray ayaa halkaasi ardayda dardaaran uga jeediyay caruur badan oo aan maadi iyo diini midnaba dhigan oo guryaha ka buuxa waxaan ognahay dariiqa markaad marayso caruuraas leedahay baabuurta jiiri oo aan wax dhiganaynin marka waalidku waa lagula xisaabtamaya waxa Ilaahay ku siiyo waxa ugu qaalisan ilmaha xaq baan kugu leeyahay xuquuqda uu kugu leeyahay waxa ugu weyn inaad wax barto ugu dambeyntiina waxa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee 2017 ilaa 2018 Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.